السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء. الحمد لله. إلهي baan ku xamdinaynaa walaalayaal. habeen jimca oo barakaysan, masaajidkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ee cibaadada ilaahay loo dhisay, allaha nagu kulansiiyey baa mahadle. runtii jazaakum allahu khayran. culammadu wayna la joogtaa, akhyaarteennii, akaabirteennii, culimmadeennii, laakiin annagu waxaan u imanay keliya ama nii soo ziyaaranay in aan isbaraarujinno uun. almawcidatu tadkiratun lilcaalimi wa tacliimun liljaahili baa la yidhi. almawcida hadday meel ay ka dhacdo waano iyo naseexo, caalimkana waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisii baa la xasuusinayaa. jaahilkana waxay u noqonaysaa diinbarashay u noqonaysaayo cilmi ka maqnaa buu ka faa'iidaysanayaa majliskaas. innakuna waxaan nahayba insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa. insaan, bani aadam, bashar. insaankaasi mar walba wuxuu u baahan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo. oo qur-aanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin. in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin. nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudakir, xasuusiye. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid. maxaa bani aadanka markaa la xasuusinayaa? bani aadankan waxaa la xasuusinayaa ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alle keligii ay caabudayaan. waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati innaa kunnaa can hada gaafiliin. aadam calayhi salaam markii aabbaheen la abuuray ee arlada loo soo dhaadhiciyey jabalu nucmaan, halka carafaad ay ku taallo, halkaa nebi aadan calayhi salaam oo ku sugan, ayaa ilaahay jalla wacalaa dahriga nebi aadan ayaa ilaahay ka soo qabtay arwaaxda awlaaddiisa. markaasaa hortiisa lagu sheedhiyey buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaa ilaahay ballan wuxuu ka qaaday arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay allaahu rabbulcaalamiin, rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan ilaahay ka qaaday. uuna qirsiye ilaahay fa ashhadahum calaa anfusihim. markaasaa ilaahay ku yidhi: anu rabbigii ini uumay ee ini arsaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn? qaaluu balaa bay idhahdeen kulligood. ballankaasaa bini aadamku ay soo galeen inay ilaahay jalla wacalaa keligii ay caabudayaan, oo keligii ay adeecayaan, oo keligii ay baryayaan, oo keligii ay isku dhuldhigayaan, oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan. ballankaasi bani aadamku way soo galeen.
laakiin arladan markay yimaadeen basharkii iyo bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bii'addii uu ku barbaaray ayaa saamaysoo bedishay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa imaa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waalidunbaa xagga yahuudiyadda u qaadayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa majuusi ka dhigaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitraddii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim fitraddii toosneed ee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud kala baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fitradda iyagoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadanku adduunkan ay yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofka uu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadanka saameyn iyo raad ku yeelanaya kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka bini aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arladan markay yimaadeen badanaa ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo mar walba addoomihiisa khayr u khayr mirayo oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtane ergo 100 iyo intaasoo kun oo nebi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadanka uu samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray si bal bini aadankan ballankii ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin ee mar walba u xasuustaan oo qur-aankii aayaadka ilaahay lagu gartay bay culimmadu yidhahdeen waa 2 aayadood midna waa middan inala hadlayso waa qur-aankii midna waa middan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa qur-aankan weeyaan haddaad qur-aanka u fiirsato 80% qur-aanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu qur-aanku ka warramayaa juzcamo oo keliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo keliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah caza wajalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa lagaa dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata markaa inaad adeecdaa kuu dhib yaraan marka bini aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa inay ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid a inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa 2 weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikaiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'ale ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalso 2na weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na ha xasuusan 2da uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi 2 laa tansaahumaa wa 2 laa tadkurhumaa buu ka yidhi 2 weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka aad u samaynaysid
waligaa xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysa wanaaga marka u horeysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weligaa xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte gallad sheegtana waayo هو إلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كلول أودرنا وإليهين صدح جرب نبي إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيا يدي خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهوجين وين خسارين كواسي أيه نبي الله نوشك مركب النبي يقول المنان وكذلك قلت شيكته برسولك يدي قلت شيكته qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu haban ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay midna kula ya dadka la mid buu kula ana qof ka dhigay kan ma adarkay buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore ma dameer buu amsa daayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof أنا سمية أنا وحكاد جي أنا ضدك كوكو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا ضحاتا مركو أهر السبع هذا مدة وحقوق بنا سلاح درت وحقوق أبو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاص هو عجيب الله ينسي إخلاص من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا دونك دوشيدا عمل كاسو سمايينا انيغا عيد كلا يقول لنا الهي اي شريك يلي عمل كيسا iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaaba ilaahay yiri saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexde waa caalim waa taajir sakhi aha iyo nin mujaahid ahaayo loo maleynay inuu diin u dhintay صدح عمل هو وين بيلا إيمانيان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها مارك تاني السخيم مالقبين أيها يحوله سوء بحجري صدح ده عمل اللي مادن إلهي هرتي صدح ده عمل بوحة كلنا مارك تاني شرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا هذا دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرت وما صور دمنه إن لقاير هذا هبل وانين دقاليها أيادو صور دمتي وانا اللي adiguna qaari baad ahayd quraan akhris fiican ama waacid umada wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhageystaan wacdiga markaad jeedinaysid umada wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaas oo umada wax u sheego arab fasiixi ayaa lagu yiraahdaa islahayd kana waxa la oranayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kasto khayr xoolaha waad ku bixinaysay haday masaajid tahay haday madaaris tahay haday ay taam tahay laakiin waxaad u bixinaysay waa hebel waa sakhi hal lagu yiraahdo saddexdii naasi waa leeyni yiri adduunka dusheedii agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la oran doonaa xadiiska Abu Hurayra radiyallahu anhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxdo halis u gaadho ayuu xadiidka nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay darti ugu qabo waa inaad ku doontaa amalkaaga aakhiro amalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu al ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan waa culimada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shariicada islaamka yaqaana dadkaas uun badada markaas lagu yiri famanil muluk kuwa hadii aad dad ku sheegtay hadana boqoraduna ayay yihiin markaas yiri az-zuhad
وادتك الزاهدين الدنيا كالزاهدي الدنيا بدبركيغا waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaas la yiri ma tawaaduc ana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaas la yiri at-takabbur ala al-aghniya dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aan ku yeelan taas tawaaduc la yiraahdaa buu ku yiri markaas lagu yiri faman as-sufaha dadka sufahaduna ay yihiin man gaabka aqliga aan lahayn wuxuu alladhi yaakulu diina bid-dunya wa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wajigiisa diineed adduunyada uu isticmaalaya kaasa safiha buu yiri فنحسن دتك هدان وحو قبنينو هدان وحو شيغينو هدان وحبرينو هدان إحسانو سمعينو هدان انفاقينينو waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale ku yiri ninkaas inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu ka yiri waxaad noqotaa qof saliim sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم وكان النبي صلى الله حديث في السنن نن أهل الجنة نقول صبيح دونا نصحابة كمدا صقلوا سووا ويسيستي صحابة ننكي بيفيريين هذانا مالين لبعض بالنبي يقول نن أهل الجنة إنه صقلي دونا إسلام ننكي بصقلي هذانا مالين صدحات بالنبي يقول نن أهل الجنة إنه صقلي دونا إسلام ننكي بصقلي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yiri ha soo aragtid buu islaha iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeena dadkii adduunyo u tartamayaan adduunyo u kala badinayaan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa lagu yiri sif lana dunya adduunyada Ali oo bal noo sifee markaasuu ku yiri ma asifuha maxaan igu safeeyaa awwaluha ana wa aakhiruha fana wa halaluha hisab wa haramuha adab kayri xan adduunyada ka sheegaa buu yiri awwalkaygu waa ana wa ta'ab ودال بدت كمان تدوير جوجا إيجا قفل بودالن يحي إن كي بدالن وأبيه بدالن وفقير كي بدالن ومالقبين كي بدالن ومدحدي بدالن وشعوبتي بدالن وهوي بدالن وإنتي بدالن وجامعي كي بدالن وكي مالك هيستدالن وكي فقير كها بدالن كي ميجا جوجا دالن كي ديار الله وضي بدالن أولها عناب علي بن أبي طالب الدوير هذا ويديسين أول كي هو الدال وتعب ودال ما بنصنع سامبا ورما لا نستع ما نصنع شيء وآخرها فناء هكذا بيا دماد أما أذيك دمن أما أدوية كهر دقاقي حلالها حساب تيدا حلال كوكو سوق عشان حسابها كذا بيسا وحرامها عقاب تيدا حرام كوكو سوق عشان والعياذ بالله هنا وعقوبة الدنيا تدوش شيء آخر ولا وقوع عقاب حرام تيدا من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن بيوري الدون كدوش شيء نيك إلى هاي هنتي أوصينا هنتي دا وكف ذنوبي حساب يدال يرفاض يعريري يولول يولبهار يسترس يولا هو مكجري كأدوية أنا هاي سنة فقير كان نقدين مروق ومكجري سقونا مروق من حساب تدي بعد ضو خصي من ولول كيجيبها هيو هالكان كهلا هذا أبو هيا تصدق معي الدون كيس كجمع دين أصحاب النبي جو آخرة ذي ترتميين جنة ذي أكل بدينيين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدح مع الموضوع اسكوحك تؤيري نن أهل الجنة الناس وقال دونا عبد الله بن عمر وحو رادنا يا ننكني وحو كمتيس الجنة ما السبب صدح بين مرقو مرتوها وح أعمال الزيادة وانت يكو اي قبنيين دافسن مركو كوايي ايو يري اباهين اسمان سو ديدينه صدح مالمود ونبي غري اهل الجنه انغو سو بخي دونا
adigaana noo soo galee camalka aad ahla jannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa 5 waqti baa tukataa saacadaha dambana witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kama muuqato salaata leelkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaas yiri huwa ma ra'ayta buuri inta aad khayrka aad igu aragtay baa anigu aan sameeyay wax kale ma sameeyay buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu adiga ka qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexday buu qofna calool xumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigooga fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nabi maxamed sooniya salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi غزواتكي نبينا صلى الله عليه وسلم غزوات كمدة أيا مركو نبيكو غنائمتي وقيبية صحابة نين أيا يري مركا قسمت دن لقيبية لقمنا عدالة فلن إلهي درتنا لو قمت جيدبو يري هذا الكايا لقول يحيى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ولو في رصدا نبي سعة صدره قلبه سبلت كيس ايق يباعيس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيها هذا الكلام مقلي ورمحاتري قسمت دل قيبيي حولها سدن لو قيبيي لقمنا عدالة فلن وعدالة لقما قيبين إلهي وجهك سنة لقما جيد بيولي هذا الكاكا ورمى انتو لقى الدنبي ابن مسعود رضي الله عنه والله إن مقرين نبي قانو الشيق بيولي مرقاب نبي قانو الشيق عليه الصلاة والسلام نبي وجهك سيبا بدل مي مرقاب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل النبي يري إلهي رسولك هذه عدالة يكو سميني وأيام وعدالة حقوق كإيماني ويدو أياك لو عدالة سمين رسولك يري أرجع مرقو النبي يري أيود ولالكي موسى عليه السلام أنت إن كبدن بالدبي أو صبر برسولك يري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ولكن موسى عليه السلام انت اكبر بيقوم جيسو اي دبيان او صبري انا قلنا وصبر يا ابو رسولك لمركز سلامة الصدر لبدا ولغا وحو كودا حسوسا لبنا هاي لوبين الهي هاي لوبين دارت اخرن هاي لوبين بوكيدي الله والدار الاخره الله وكيكو أبوريكو جرسيي دارتا آخرنا ودارتا كل جنوة النقند ونحق ذويان الله وكيكو أبوري محكو أبوري معرفة سؤال هيكو أبورتي عبادة سائل هيكو أبورتي آخرتنا ودارتا الضوامها إلى هي وكسو جيو الضوامها لقو حسابي دون ويان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا ما لنت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان وما لنت ويوم الفصل وما لنت لك لصاري دونو ويان كيف عنائك يحمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولغا هاي لوبين بوكوري لبدا ولغا هاي لوبين الله يكو أبوري هاي لوبين مر والبا حسوسنو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حسوسنو هداد أقل كاقا جوكت إلهي حسوسنو
haddaad maskiidka joogto ilaahay xasuusnow haddaad cirka joogto ilaahay xasuusnow haddaad dhulka joogto ilaahay xasuusnow weligaa ilaahay hayloobin laana ilaahay adaa u baahan qalbigaaga inuu ilaahay ka bixin ducadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ugu badnayd uu ku ducaysanayay maxay ahayd yaa muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik qulubtuna waxay ku jirtaa buu nabigu yiri ilaahay tabaaraka wa tacaala asaabicdiisa laba usbuuc oo kamid ay ku jirtaa buu nabigu yiri yuqallibuha kayfa yasha sidoo doona ilaahay u qalliba sidoo doono yuqallib marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu daacadaada ku sug ilaahu qalbiga macrifada ii fadhiisi fala nansa ilaahay nama iloobin isagoo ku iloobayna inaku kuma iloobayo khalaqaka fasawaka uku abuuray uku jirsiyay asbaqa alayka ni'amahu daahiratan wa baatinah ilaahay ni'amtiisi waa ka ku hubiyay teeda muuqatay taanan muuqanba amnigi baa ku ilaahay ku siiyay amniga ya amnigayna siiyay ilaahay man asbaha minkum aminan fi saribihi mu'afan fi jasadihi indahu quta yawmihi fakannama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha qofka waagu ugu bariistay buu nabigu yiri isagoo nabad qaba iyo jirkiisii oo bad qaba quuta اليومkiina maalinta wuxuu cunayayna haysta buu nabigu yiri nicmadii adduunyada taalo dhan waa la siiyay buu rasuulku yiri waagi baa ku bariyay dadkaagii iyo adigii oo nabad qaba amnigu waa nicmo ilaahayna siiyay ilaahay ku mahadiya amniga hala ilaaliyo nicmada ilaahay oo bixiyo nicmada ugu weyn waa islaamnimada nicmada labaadna culimadu waxay yiraahdeen waa caafimaadka nicmad saddexaad hadii la sheegana waa nabadgelyada rabbi ij'al hadha albalada aminan amnigu waa qaali weeyaan ibraahim baa ku ducaystay amniga bisho markay balatu nabigu ku ducaysto yiri allahumma hillu bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka allah allahumma hillu alayna bil yumni wal iman bishi ba balanaysa waxa sunnah inaad ku ducaysatid bishaas inay baraka kula dhalato barako iyo nabadgelyo inay amni la dhalato inay arsaaqad baraka la kula dhalato in islaamnimada ilaahay kugu sugo in nabad qabna ilaahay ku siiyo nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam waxa uu ku ducaysanayay laba shay buu inamadiisa ugu duceeyay markuu beedka ilaahay ugu ducaynayay labada maxay ahayd in ilaahay duriyadiisa shirkiga ilaahay uu ka ilaaliyo amnina ilaahay uu siiyo wa tawxiidkii wuxuu israaciyay nabadgelyadii waayo hadaan nabad la haysan sidan masaajida loo camiri maayo sidan loo soo shaqo tagi maayo marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyay waxa ka maqan ilaahay baa ku haya fanasal min allah ilaahay wax walba han weydiisano ilaahay waa hayyi xishood badane adoonka haduu gacmaha kor u qaado yiraahdo ilaahay waxa isii inuu faramadni ilaahay ku soo cesho waa ka xishoodaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam فلا ننسى تبدل ما أنت إلهي وإلو بين قار زمنك يراعين زمنك قار مادة دي باقادتي قار شهوات كي باقاتي بياك سوري دي مركا يا أنستيحين يا أضمغن إلهي مر والبا حسوسنو دات كان إلهي حسوسي آخرة حسوسنو
dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyadu way yaraanoo taacadda ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay uu aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiyaa tacjiila tawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaad ilaahay uu siiyey ma taqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqada iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa تصدحاتنا بقى اللي يريه النشاط في العبادة طاعة إلهي بقف كاس وجه جبنانا يا إن الصلاة كود بيراتو وصوم كود بيراتو وقرآن آخرس كود بيراتو وفرد مسجد كو معانا دو ودين تبرشة دو كود بيراتو وعمل فلك الدين تكو معانا تو وحكينا يا وهدي قلبي يا مرول بإلهي أتكو هيسد آخرته لا يكون هرتالو لبدا سي هدي قلبي ينا يكون يراتنا لبا صدح عقوبة قف كود على صدح عقوبة عقوبة كوباد waxa weeyaan bal la yiri toobadu ayuu dib u dhigtaa hore uu toobad keenay maayo illa waad dhimanaysaa isma leh wuxuu isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaca ma yeelanayo qalbigiisu qanaaca ma yeelanayo waxa adduunka maal yaalo oo dhan sidoo ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn man helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyntahay cibaadadii iyo taacadu u dhib yaraanaysana kana waxa ku dhacaysa alkasalu fil cibaada cibaadadii ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la oran jiray radiyallahu anhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxa la yiri uu galgalan jiray saas uu galgalan jiray sida dhariga marka biyaha la saaro ee dabku ku ziyaaday biyuhu karsamaan sida biyuhu ay isku laba gadiyaan ayuu habeenkii u galgalan jiray sidaas markaa bay xaaskiisu ku oran jirtay maxaa la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku oran jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu oran jiray nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yiri shibta nabi allah ciradii baa kugu badatay baryahan maxaa jira markaa buu nabigu yiri shayabatni hud wa akhawatuha suuratu hud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yiri suuratu hud wa akhawatuha amma yatasaalun idha ash-shamsu kuwirat idha as-samaa'u infatarat idha as-samaa'u inshaqqat suuradaha qiyaamaha ka waramaya ayaa nabi maxamed cirada ka soo saaray suuratu hud markii la baarayna aayada nabi maxamed cirada ka soo saartay waxay culimadu ku sheegeen fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka fastaqim kama umirta waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawaacan istiqaamada markay culimadu ka hadleen waxay yiraahdeen والله بورود أفقا دشودا الله دقي أول اللي قفنا آذنا هلك الظلمر صدود صعنا يا صدود صعن دق صعن مايو عبسبكم مرة يا هلك عبسي فاستقم كما أمرت سيدي الله أمرك توصنو حق إله إلالي حقوق ذا بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم هذا أضو بني آدم رحمك وقول شيئا آخرها هدات ماذا أضو وحلقوه حيستو فاكي النبي يقول لها أتدرون من المفلس قفك عيدا مئة قانان صحابة وحيد هذا عيد وحنون قانا أنكو قفك الدينار يدرهم يمتاع وحبا أنا هيسن مرقاب النبي يقول قفك عيد واكي وبنك قيامه الله يمن دونا صلاة يصون يزكي يحجب الله يمن دونا laakiin dad fara badan baa halka hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkani waa idilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygay buu iga dhacay mid wuxuu iga leeyahay dhiig buu iga daadiyay markaas la oranayaa waxa li waxa uu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku galiya markaa baa la oranayaa waliba dad kala hadhay oo adoonka ma aragtaan ku sheeganaya xaq
markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydho waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aado jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daarudunya joognaa maanta fursad baan haysanaa innaku dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق هاد بينت هاد إلهي أدقو أتكعب صوتد أيا مخلوق أدقو كاهي بسنيان هاد بينت هاد أدقو إلهي أتجعلاتد أيا مخلوق نكو جعلانيان هاد بينت هاد إلهي كعب صوتد كن لي كما أريد أكون لك كما تريد حديث القدس إلهي بالله سدان ربانيك إيال ساد ربتنا أنا كوسي لي سدان ربنا ما أنت إنك تذكرن محير ربان عريدي إنك بحام بين ربان فقر إنك بحام بين ربان ذل إنك بحام بين ربان مصائب إنك دح بحام بين ربان ضيق الصدر إنك بحام بين ربان وحالي وحاد كقبح لهيد عريرك الدنيا عريرك آخرة ومحي حرق إلهي قبصه واتي صحابي الربعي بن عامر وأشياء مارك تاني مدحي وين الرفرس رستم الله ابتعثنا إليكم بكيري رستم قائد قوات الجيش بوها ربعي بن عامر باوي مدو لو سو ديرو لي اورد لا سو هذا هذا دغال ربانا ديار بانو نحي هذا صلح ربانا ديار بانو نحي ربعي بن عامر مركو يمدي وعوري انكو سداد نو ملينيسان منهن وحانا دد الهي ادونك او سو ساري بان نحي يانا سو ساري الهي لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأذيان إلى عدل الإسلام بكويري عجيب وحنا الدوية أنكو اسكمنو إيمانه وما الله صو صاري بأنهاي ونبي جدي بلا الله صو صاري عليه الصلاة والسلام سيد النبي محمد عالم قال لو صو صاري إنه رسالة دو قارسيو أيا أنكنا هدانا يا أصحاب تيسي إلهي بأن صو صاري بكويري لنخرج من شاء سي أن وصارنا كيدونا عبادة أي عبودة ينظمها السدودة ونصارنا ما ركتنا عبادة إله واحد كا وأرك ما أنت مسلمين تو أي فهم الأيهين ومن ضيق الدنيا عريرك الدنيا إنا كسرنا ضدك على نوك ينبود عنك ونصارنا إلى ساعتها نولش الدنيا بلع عيقي بلع كيكا wargaaladu ciriiri bay ku nooshaa ciriiri bay ku jiraan muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa sicatan fi rizqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa muminku sicu ku jira sica muminku ciriiri ma galayo nolosha waxa ciriiriga gelinaya waa maxay waa macsiyada nolosha waxa sicada gelinayna waa taacada ilaahay saasuu ku yidhi saxaabigaas ciriiriga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo ni saaran nolosha adduunyada balladhkeeda iyo waasicnimadeeda wa min jawri aladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buuhi annaku
oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawr al-adyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka rustum bay adu ma amiirkii ciidanka tahay may anu mid jamaacadda muslimiinta kamid ah baan ahay buu yidhi markaasuu yidhi waan soo tashan doonaa iyo iska soco u socday nin buu u yeedhay markaa rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan ood la cuntid ood la seexatid ood eegtid deedna marka aad ii soo noqotood iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninkaa la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninkaa jaasuuska ah markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu yidhi maa waraa'aka ragga aad u tagteen kuu diray bal ka warran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun binnahaari wa ruhbaanun billeyl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubbaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka innagu khamriga aan cabbaynana iyagu khamriga ma cabbaan halka innagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka innagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka innagu aan kala sarraynana iyagu kala sarrayn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanidin meel keliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaanna ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada innagu aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaanba iyagu ay jecel yihiin buu yidhi عجيب لئن كنت صدقتني ليملكن ما تحت قدمي هاتي بود هدي تهي كرون شيغايا صفاتك ادي شيغيسد اي مسلمين اد كو شيغيسد هدي مسلمين صفاتك اي ليهين كرسيغا يا خزائنت ذهبك هوستيدا تالا مالين اي قبسدان برغاس way qabsan doonaan buu ku yidhi nolosha adduunyada raaxada adduunyada عزك الدنيا شرفت الدنيا هرمرك الدنيا خيرك الدنيا يا الله ولا ليال ايدتكم انت اي رادين يا الهي مالك لما قالين الهي وحوق لي ان امد الهي وصل نقطه بس ان الهي الله صل نقطه وتوبوا الى الله جميعا حكوا حقا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح با دونيسان ها صل نقطه هداد مسلمين هداد مؤمنين الليبان دونيسان سو نقض بولاهين ليها جماعا ماها كلي ماها جمع كو سو نقضا امدها سو نقطها توبت كنتو تفلحون فلاح الهي با فلاح شاقي والاسلام نمدا الهي با كو شاقين لغو ليبانايو حي على الصلاة حي على الفلاح بمؤذن كلية صلاة حقيقة أو كالي الليبان حقيقة أو كالية صلاة والليبان صلاة ولا تكذا لقول ليبان يا مهرد هذا وصلاة كوكو دافت لقوم الليبان أيو أمر كإلهي والله قاتل لقول ليبان قد أفلح هي الليبان دتك إيمان كلا الليبان يا صلاة دي بقول لي والليبان تأو كالية ليبان با إلهي شاقي إلهي با الليبان شاقي مركا الليبان تو دين تيكو جرتا دين تاسنا الحمد لله إنك إلهي دين تاو نسيه ونقول لي والله دادك ودنك كن نول بقولال كن أو جرب على الربا إلهي نكو شكرنا دل دين تودو مديسان تهي عقيدة دودو مديسان تهي مذهب كوغو مديسان يهي luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka wadarkaasaan caalamka maanta waxa ka socda nicmada ilaahay na siiyay inaan ilaalshanaa linaga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culamadeena tujaarteena fuqaradeena odayadeena dhallinyaradeenna dowladdeena shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteenna ilaalshanaa linaga rabaa
diintan saan ku ilaalinaynaa markaas waa in qalbigeena ku weynaataa diintu kow marka labaadna nolosheena diintu waa ina ka muuqataa oo mujtamaceena waa ina diintu ka muuqataa dhalinyaradeenna waa ina diintu ka muuqataa wiilasheena diin waa ina ka muuqataa gabdhaheena waa ina diin ka muuqataa tijaaraddeena diin waa ina ka muuqataa xukuumaddeena diin waa ina ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummadda in isku bedesho laana zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiyo ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zamankii diinta weeyaan nabigeennaa sii sheegay sal allahu alayh wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu yidhi sunnadayda ninka idhahda waan qabsanayaa uu la mid yahay nin dhamac haysta ha sii dayna xajiso waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxa uu la mid yahay nin dhamaxaya buu nebigu yidhi dhamac ma hayn karaysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru 50 rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada 50 nin ajarkood buu nebigu yidhi ayuu qaadanayaa saxaabi baa sare kacoo yidhi man 50 annaka mise waa 50 iyaka ah maya waa 50 ininka buu rasuulku ku yidhi 50 ininka fi sunan tirmidhi 50 asxaabtii nebi maxamed ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada نتمسك دينتنا قبسنا إن شاء الله هذا دل يردنا علماءنا عمدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء أي نقوم مرتقى علينا نكو أرضي بنا علماء منهن ساجد كان مركز العلمي ummad oo dhan baa ka faa'iideysata cilmiga halka culimadu ay ka bixiyaan runtii meel kasto ay joogaan dadka af Soomaaliga ku hadla masaa'isha diiniga sheekheena jazaahullahu khayr halka ka bixinayo caalamka oo dhan baa ka faa'iideysta maanta marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin haddana waa talab waa nasiixo weeyaan anagu caamadaan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta tafaariiqlayaal Soomaa bagaashlayasha de hadee labada ma kala maarmayaan ma kala maarmaan anagu marka tafaariiqlayaal baanahay xadiiska culimada aan ka maqalo ayaan maalin batuulo gaarsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culimada garab han siino seen garab culimada u siinayna wixii culimadeena aan ka maqalo ummadda han gaarsiino Tufayl bin Amr ad-Dawsi intii nabigeena uu ka maqlay ayuu yiri tolkay ana gaarsiinayo iidir buu ka yiri tolkay inni imru'un la muta'un fi qawmi nin waxaan ahay dadkiisu aad u dhageystaan nabi Allah oo shaacira idir waa diray nabigu sallallahu alayhi wasallam markaa buu soo noqday yiri calaamad la igu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii malaynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsigaga dhacday u malaynayaane ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri wallo ugu bedelay waa nin shalay islaamay ayaa ducadiisa la aqbalaya inaka ducadeena ka warama maanta ya nin shalay islaama karaamaadka durba ka daahiraysa iyo nusradii inaka diinta islaamka ku dhalanayna ma aaminsanin ducadeena ila aqbalaya maanta uu tagay waxa ninkaas tolkii karaamo ula tagay karaamo leenabiga karaamo weydiistay karaamadiina waa la siiyay waxa la yiri in yar baa ka soo rumaysay intooda badan way diideen markaa uu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaa uu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi Allah ilaahay habaabiye markaa uu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo waxay yiraahdeen reedows way halaagsameen maanta markaa uu nabigu ilaahu reedows soo hadee qalbigoogana adiga haya ilaahu diinta jeclaysi buu yiri muu habaaray mise uu duceeyay ducada horeysa Tufayl bin Amr ad-Dawsi buu nabigu yeeray adigana waxa uu ku yiri Tufaylow markaad umada khayrka aad u sheegaysid
oo dhibri buu ka yidhi oo dadkaas jeclaysii ha farxin dadka nahjigii dacwadana isagii baa laga saxay waana u duceeyey nebigu labadaa buu la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiiba kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reer dows oo abaa hurayrana uu dhex socdo ayuu nebiga ugu keenay iyagoo soo wada islaamay madiinat almunawara karaamadii kumay islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo ducadii intii nebiga uu ka maqlayna ummaddiisa u gaadhsiiyey innagana maanta intayna raggeena halkaa fadhiya guryahan ku noqonayno waxaa laga yaabaa hadday 7 qof aqalka ku soo yeynaysa habeenkii in ama 2 ay ka tukato ama 3 ka tukato taariiku salaaqal u dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas-uuliyad culummada keliya saaran hamoodina ummaddan ilaahay baa shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso dee insha allah cilmiga culummada aan ka qaadno ee jumladda kaga qaadno inuu tafaariiq la noqdo ayaa uu diyaar ummadda gaadhsiiyo ya maasha allah allah ina barakeeyo jazaakum allahu khayr sidaad noo soo dhoweysana allah inoo soo dhoweeyo kulligeenna jannatulfirdowsna allah inagu kulmiyo waxa aan ku hadallayna maaragtana wixii aan asiibnayna ilaahay baan na waafajiyey wixii aan gafnayna waa gaf xagayga ka yimiday ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaynaa وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba ka kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad